اللهم صل على محمد بسم الله كسر دواada cashiradeyna ku saabsanaa tiknoolajiyada cusub insha allahu tacaala maanta waxaan qaadan doonaa cashir ku saabsan sidee baan u xiri karaa ama aan u furi karaa my mouska computerkeyga ama laptopka aad leedahay haddii mouska uu kaa xirmo sideebaad mouska aad usoo furan kartaa just ila soco steps aad u fudud waay kow stepska aad qaadi doontid waxay noqon doonaan stepska aad qaadi doonto waxaa ugu horeysa kow control panel inaad soo furato labo mouse use the mouse then enable and disable marka ugu horeyso waxaad tegi doontaa control panelka markaad tagtid waxaad kasii dooran doontaa mouseka markaad dooratid waxaad tegi doontaa window baa kuusoo furmi doona ama qaanadaas wuxuu yeelan doonaa laba option oo ah enable ku samee oo mouskaadi furo ama disable mouskaadi iska xir insha allahu tacaala iyadoo practical ila soco practice time okay marka ugu horeyso waxaan tegi doonaa control panelka marka control panelka aad tagtid waxaad kasii dooran doontaa mouse taabo just waa kaasa markaad mouse ka tagtid waxaa kusoo furmi doona windowgan waa mouse propertieska uu leeyahay disable haddaan dhaho mouskii uu ka xirmaya disable just waa kaasa mouskii ma soconayo disable baa dhaha mouskii ma shaqeynayo maxaa dhacay what's problem access mouskii laptopka uu lahaa ayaa right click ahi dhammaan markuu shaqeynaya just waxaad u baahan tahay markaad inaad computerkaaga aad kusoo xirato external mouse si aad usoo furato just mouska laptopka uu leeyahay waa built in isaga ayaa wato marka markuu shaqeynayo external mouse soo qaado si aad uga dhigato enable external waxaan kusoo xiri doonaa mouskii just mouska ayaan kusoo xiray externalka ahay mouskii markaan kusoo xiro waxaan dhihi doonaa enable just apply okay waxaan ka furi doonaa external mouskii waa ka fur waa kana just waad ujeedaa mouska way shaqeynaya meel laala meeshaan rabo ayaa geysan karaa iska xir right click refresh waa computerkayga soo fur just waa kaasa waad arki kartaa insha allahu tacaala intaas ayaan kusoo koobi doonaa cashirkeeni ku saabsanaa sidee baan aan u furan karaa ama aan u xiri karaa mouska laptopkayga uu leeyahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu